Ciidamada deegaanka ee Macawisley ayaa weerar ku qaaday fariisimo kooxda Al-Shabaab ay ku lahayd deegaano ka tirsan galbeedka maamulka Hirshabelle gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana ciidamada deegaanka u suura gashay inay halkaasi ku dilaan xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab sidoo kalena ay ka soo furtaan hub iyo gaadiid dagaal waxaa la soo warinayaa in dagaal dhimasho iyo dhaawacba sababay uu dhex maray ciidamada ka tirsan Macawisleyda iyo kuwa kale ee ka tirsan Al-Shabaab waxaana dagaalkaas uu ka dhacay deegaano dhaca galbeedka degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada deegaanka ayaa weeraray fariisimo kooxdu ay ku lahayd deegaano hoostaga degmada Gamboole ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale isla degmada Qudheeda waxaana halkaas lagu dilay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab magacyada ragga ay dileen ayay shaaciyeen Macawisleyda waxaana raggaasi Al-Shabaab ay u qaabilsanaayeen ururinta waxa loogu yeeray sakawaadka sidoo kale waxay halkaasi ku hayeen xoolo nool oo ay dad shacab ka soo qaadeen sida ciidamada deegaanku ay sheegeen Cabdullaahi Xasan Isaaq oo ahaa madaxa maaliyadda degmada Gamboole ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dagaalkaasi lagu dilay halka Muxiidiin Cali oo isaguna kamid ahaa dagaalamayaasha Al-Shabaab lagu dilay nin kale oo isaguna magaciisa aysan shaacin ciidamada deegaanka ay sidoo kale dileen waxaana ay baahiyeen qabaa'ilada ay ka soo jeedaan raggaasi ay toogteen ugu yaraan 3 xubnood ayaa la dilay tiro intaasi ka badanna waa la dhaawacay waxaana halkaasi lagu soo furtay 3 qori oo nooca Soomaalida ay u taqaan AK47 ah iyaga oo wata booshkooda iyo mootada loo yaqaan laba lugaaley iyo taleefanadii ay isticmaalayeen raggaasi qaadayay lacagaha ay Al-Shabaab ugu yeeraan sakawaadka waxaana taleefanada ay qaadeen akoonadooda ku jiray lacag $10 sida ay sheegeen ciidamada deegaanka ee Macawisley ciidamadan ayaa weerar ka qaaday fariisan ay ku leeyihiin meel aan sidaasi kaga fogeyn degmada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle waxaana masaafo dhan 60 kiiloomitir ay ku gaareen degmada Gamboole ee gobolka Shabeellaha Dhexe raggan sakawaadka loo yaqaan ayay dhulhooda isku qabteen iyaga oo ka dishay 3 qori oo AK47 loo yaqaan mooto iyo sidoo kale agabkii ay isticmaalayeen ka qaatay howlgalkooda ay hore u sii wateen iyaga oo gaaray degmada Gamboole ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo deegaano kale oo ku xeeran ciidamada deegaanka waxay soo bandhigeen sawirro iyo muuqaallo muujinaya deegaanada ay la wareegeen iyo ragga ay qabteen sidoo kale waxay soo bandhigeen boonada ay Al-Shabaab ku gooyaan ama waraaqadaha ay canshuurta dadka shacabka ugu jiraan ay ku sheegeen sakawaadka iyagoo halkaasi ku gubay sidoo kalena waxa ay howlgalkaasi kula wareegeen qoryo AK47 ah booshka ay isticmaalayeen iyo mobilada warqadahan aad arkaysaan waa kuwa lagu jira canshuurta Al-Shabaab ay ka qaadaan dadka deegaanka ee iyagu xoolo dhaqatada iyo beeraleyda isugu jira waxaana ay sheegeen inay ka dulqaadi doonaan heeryada ay ku hayaan dadka shacabka ah kooxda Al-Shabaab ciidamada deegaanka oo iyagu si iskooda isku abaabulay isla markaana 10kii sano ee la soo dhaafay ka howlgalayay gobolka Shabeellaha Dhexe iyo qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose ayaa howlgalkan cagmarinta waxa ay ka sameeyeen gobolka gaar ahaan deegaano hoostaga degmada Gamboole ee gobolka Shabeellaha Dhexe maaha markii ugu horeysay ee weerar noocan oo kale ay qaadaan ciidamada deegaanka ee Macawisleyda loo yaqaan waxaana howlgaladooda inta badan ay ku beertilmaameystaan xubno ka tirsan Al-Shabaab toddobaadyo ka hor ay ahayd markii ciidamada deegaanka sidaan oo kale weerar ay ku qaadeen deegaan lagu magacaabo Waabata halkaas oo ay ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab sidoo kalena ay ku soo furteen hub iyo gaadiid dagaal oo ay isticmaalayeen kooxda 3 mooto oo nooca laba lugaaleyda loo yaqaan mootada gaarida loo yaqaan ee xoolaha ay ku qaataan kooxda iyo sidoo kale qoryo iyo hub kale oo dagaal ay ka soo furteen kooxda weeraradan oo idil waxaa fuliyay ciidamada Macawisleyda beesha Gaaljecel ee ku sugan galbeedka maamulka Hirshabelle gaar ahaan deegaanada hoostaga degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe howlgaladan ayay sheegeen maamulka degmada Gamboole in uu sii socon doono iyaga oo sheegay in inta ay joogaan deegaanadaas Al-Shabaab ay iyaguna sidaan weerarada ugu sii wadi doonaan